halkan ma ahan goob ay dadweynuhu iskugu yimaadaan laakiin waxa lagu ogay salaada ciidul fidriga waa xabsiga dhexe xamar si maxaabiista xabsiga dhexe ku jirta ay u dareemaan farxadda ciidul fidriga ayaa taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliyaha xabsiga dhexe ee Muqdisho waxa isla gudaha xabsiga dhexe ee salaada ciid ay kula tukadeen maxaabiis aad u far badan kuwaas oo si qurux badan u labisnaa isla markaana ay ka muuqatay farxadda ciidda iyo daryeelka bini'aadanimo oo ay heleen salaada kadib taliyaha xabsiga dhexe xamar sareey guuto Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile ayaa dardaaran u faray maxaabiista isagoo tilmaamay in ay ka toobad keenaan dambiyadii ay galeen waxaan idinku waaninayaa aniga shakhsi ahaan yaan leys dareensiin xabsiga ee haleys ilowsiyo diinta ilaahay lagu mashquulo maadiga aad baranaysaan oo la idin barayaa lagu mashquulo nin walba wuxuu ku mashquulo ha samaysto oo hadhow markuu meeshan ka baxo waxaasaan xabsigii ka soo dhax faa'iiday oo yiraahdo maahane haddaad qalbigaaga ka dhigto nin maxjuub ah oo qol ku jira oo meel lagu laabay oo la dulmiyey haddaad iska dhigto markaasaad dulun gashay waxay la mid tahay gaajada marka aad adoo gaajaysanayn oo waxaysan haddaad istiraacada waad gaajoon isla markaasaad gaajadaba ku suganta markaad adigu is-ilowsiido oo qalbigaaga aad ku xirto alle qadartii inaad meeshaan ku timid alle dartina qadartiisana aad uga bixi doonto ma dareemaysid xabsiga taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa ugu baaqay maxaabiista in ay iscafiyaan farxadda munaasabada ciidul fidriga awgeed inta marka iraahda kadib haddii cadaalad la waayo wax jira ma jiraan haddii Soomaalnimo la waayo wax jira ma jiraan haddii nabad la waayo wax jira ma jiraan midka nabadgelyo darrada wada أولاد بولالي نف بوليه أهل بوليه أو لحن صنايو إنكستو أهلكو أو أهلكيس أو صوماليه وعنكو وذن ليه إسعافية هذا على الفيو إلهي سبحانه وتعالى عفس كدلبو هذوك عقد سقبة إلهي إذا عفيمه مركا هذوك إسعافيدان بقى إلهي نعرف مركا علوشين أضبنيدان أو أضو والالكا نعم محان كوري هذا وحا أضو الطهي لا تعلاته يا إلهي نكو عفينيا حدي كسب الشيخ أنه شيكي لكن أذيك كان علم مشاغيق أو يعني الدين نعم نقول هو قرنا يا المسلم يقول وحين الله هاي نفتي إنه قيمة وحيلة هاي waxaad walaalka naftaada markaad walaalka la jeclaato naftaada qiimo leedahay isdirjeeya walaalooba adoo isjecel xabsiga ka bax irid markaad ka baxdaan xasuusno walaalkaaga xabsiga ku jiray ilaahu nabad uga soo saar maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe marka aad soo eegto xaaladooda nololeed waxay daliil cad u noqonaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan dhinaca daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda maxaabiista tan waa isbedel muddo laga soo shaqeeyay mirihiisana uu muuqdo maanta Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho